madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa guul siyaasadeed ka gaaray laba aag oo ay kula loolameen mucaaradkiisa iyo kooxda madaxweyne xasan sheekh waana laba qadiyadood oo xasaasi ah marka laga hadlayo arrimaha siyaasadeed ee ka jira gudaha maamulkaas. 4 maalin ka hor sida Antaminefila Soomaaliya waxay go'aansatay dagaal siyaasadeed ka dhana madaxweynaha koonfur galbeed oo ay u aragtay inuu halis siyaasadeed ku noqon karo mustaqbalka dhow qorshaheeda koonfur galbeed. inkasta oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud 16 maalin isagoo xukunka jooga u safray Baydhabo 31 May sanadkan si uu kabuubsa siyaasadeed ugu mudo Laftagareen haddana labada dhinac midkoodna irbadu si wanaagsan oo lama falgelin dhiigiisa dhismihii xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse ayaana sii muujisay bardhamaadka dagaalka iyo hilaaca koobaad ee xaaladda. Muqdisho waxaa laga asaasay madasha isbedel doonka koonfur galbeed oo sida la xaqiijinayo ay fiila Soomaaliya gacanta ku hayso xubnana ay ka yihiin xubno ka mid ah golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubno hore ula tartamay Laftagareen ama siyaasadda ay isku hayaan. toddobaadyo ka hor fiila Soomaaliya waxa ay kala abaabushay qorshe ka yimid dhinaca guddoonka golaha shacabka gaar ahaan gudoomiyaha baarlamaanka Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe kaasoo ahaa in gogol siyaasadeed loo fidiyo dhammaan dhinacyada siyaasadda ee koonfur galbeed. sida aan ogaanay qorshaha ugu weyn ee fiila Soomaaliya arrintan waxa uu ahaa in Aadan Madoobe uu taga Baydhabo halka uu saldhigto isla markaana ugu dambeyn halka ay u safraan inta badan xubnaha mucaaradka ee saameynta kule koonfur galbeed iyo Baydhabo ayna hogaamiyaan xubno uu ka mid yahay Muqtaar Roobow. laakiin Laftagareen ayaa qorshahaasi ka hortagay sida muuqata shirkadda heshiisiinta ee ay doonaysay kooxda fiila Soomaaliya inay gacan ama saameyn ku yeelatana Aadan Madoobe waxa uu muuqdaa inuu hadda qayb ka noqday dhinaca maamulka koonfur galbeed gaar ahaan madaxweynaha maamulkaas. Laftagareen waxa uu xoog saarayay in shirkadda heshiisiinta ee lagu baaqay Aadan Madoobena uu ku baaqay uu soo dhaweeyay isagu uu yeeshay hagidda iyo maamulidiisa. arrinta koowaad ee taas suurtagelin kartana ay ahayd inuu jaangooyo waqtiga shirka la qabanayo waxa uu doonayay in ugu yaraan bisha Janaayo laga dhigo lana dhaafo December si ay meesha uga baxdo hadalhaynta la xiriirta in muddaxileedkiisii dhammaaday. xubno ka mid ah taageerayaasha fiila Soomaaliya iyo madasha isbedel doonka ee ay garwadeenka ka tahay ayaa ku dhawaaqay in shirkaas uu fashilmay waxayna sheegeen in laga dhigay sidii uu doonayay Cabdicasiis Laftagareen. Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe gudoomiyaha golaha shacabku waxa uu Baydhabo ka sheegay inuu isagu dib u heshiisiinta hogaaminayo uuna iclaamiyay bisha Janaayo ee ugu soo wajahan. waxa uu sheegay in wax kasta laga hormarinayo kala dambeynta maamul ee koonfur galbeed. qodob kale oo isku day fiila Soomaaliya waxa uu ahaa in laga baneeyo qaybo ka mid ah jiidaha dagaalka ee kooxaha argagixiso ay kaga sugan yihiin gobolka Baay taasoo Aadan Madoobe uu sheegay inay ahayd arrin siyaasadeed oo ka soo horjeeda buu yiri dhismaha iyo deganaanshaha koonfur galbeed. xubno ka mid ah madashu waxa ay sheegeen in laga celiyay inay u socdaalaan Baydhabo taasoo muujinaysa in uu Laftagareen ku guuleystay inuu gacanta ku dhigo garoonka diyaaradaha ee Baydhabo oo la socdo dhaqaaqyada dhinacyada ka soo horjeeda ee doonaya inay saameyn ku yeeshaan magaalada Baydhabo. koonfur galbeed waa aaga ugu horeeya ee madaxweyne xasan sheekh iyo xukuumaddiisu ay ku dhiig bixi doonaan. isku day kasta oo la xiriira faragelintana waxa ka dhalan doona in dhammaan dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida oo dhan ay ku fooganaadaan. sidaas oo kale dowladaha gobolka ayay saameyn ku yeelan doontaa. madaxweyne xasan iyo qaar ka mid ah wadamada gobolka ayaa la rumaysan yahay inaysan wali qabin isku fiyoobi siyaasadeed oo baraxla taasoo ayana xaaladda koonfur galbeed saameyn ku sii yeelan doonta. nooca labaad ee ay u fakari doonaan kooxda fiila Soomaaliya iyo madasha midowga musharaxiinta ee koonfur galbeed ee aasaastay ayaan la aqoon doonin. ma ogtahay maantaba inaad ka maaratid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Ameerika baysi waxa uu ka qabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store-ka iyo Play Store-ka